Baarey waxay ku taallaa dowlad deegaanka Soomaalida waxayna ka tirsan tahay gobolka Afdheer. Baarey waa mid ka mid ah degmooyinka ugu waaweyn uguna taariikhda badan ee ku yaalla gobolka Afdheer. Baarey waxay xuduud la leedahay dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Bokool, waxayna masaafo 50 kiiloomitir ah isku jiraan degmada Yeed oo ka tirsan gobolka Bokool, Soomaaliya. Waxaan maanta muuqaalka idinku tusi doonaa Baarey. waxaan booqan doonaa goobo fara badan haddii ay noqoto goobaha ugu taariikhda badan iyo goobaha ugu caansan magaalada. Haddii aad Baarey maqashay oo aanad horey u arag, waxaad ka ogaan doontaa muuqaalka like saar, subscribe saar, siina share gare muuqaalkana daawasho wanaagsan. Assalaamu calaykum, YouTube-ka daawanaysa oo Maastika Channel ku soo dhawaada baan la saaxiibayaal oo maalin kale muuqaal kale. waxaan idinka salaamayaa maanta bartamaha magaalada Baarey. Cadoon Baarey baan idinka salaamayaa saaxiibayaal. Baarey waxay ka tirsan tahay gobolka Afdheer. maalmo badan kadib waxaan soo booqday magaaladan Baarey. haddii la yiraahdo waxaan idinka duubi doonaa muuqaallo qurux badan haddii ay noqoto quruxda magaalada, taariikhdeeda iyo goobaha ugu caansan magaalada. halkan hadda taaganahay waa faras magaalihii magaalada. runtii waa magaalo aad iyo aad u weyn, waana mid ka mid ah degmooyinka ugu waaweyn gobolka Afdheer taariikh ahaan iyo waxa weeyaan qurux ahaanba. waxaan la saaxiibayaal muuqaallo aad iyo aad u xiiso badan baan idinka soo duubi doonaa magaalada gudaheeda. haddii aad horey Baarey aad u maqleen ama aadan u arag, waxa weeyaan muuqaalkan gudihiisa ayaan kuu tusi doonaa Baarey. waxaan leeyahay stay tuned. waxya jirkayga haddaan ku waayo waahi waxyeele alla ku waaweyn صاحبي أنا دوحن سوق عملت دوحي مقالة باري دوحن وبرنت دوح آدي هذا بلعنا ساكت سمكة كم يحيي كم يذم مراح حوالي مقالة دوح عن صندوحني ومقالة كلا براه حوالي مقالة قيبتنا ولا قد جيني هي قاش إذا قيبتنا لكن كنا ولا قد جيني دوحن هو اللي نعبه دوحن برنت دوح آدي هذا بلعنا مقالة باري بنا عام فا وحوالي برتمه مقالة دوحن دحمرة دوحن هدي هذا اللي كده بارت تدري باري تي حاجة فلذة وصلنا ورد مالك الله فرما ما تيجي دنا مقالة آدي هذا قرب كذا صاحبيال حوي هذا waxaan soo gaarnay mid kamid ah buuraha magaalada. aan mid kamid ah buuraha ugu quruxda badan ee magaalada ku yaala. view-ga magaalada waad ka arki kartaan xagga gaashida sida arkaysaan ba oo xaggan magaalada dhan bay iga hooseysa. waa runtii buur aad u qurux badan. hadda halkan aan ku socono waxaad arkaysaan dhagaxaantan oo yaala. marka dhagaxaanta haddii aad sheego waxa laga waday waxa lagu leeyahay biyaha markay ka soo daataan buurta sifaynan biyaha inay toos ugu tagin xaafadaha ka hooseeya inay waxa weeyaan xagga geesaska biyaha maraan. marka dadka xaafadan degan baa ka shaqeeyay oo qaab waxay ugu sameeyeen marmar ahaan ah. hadda xagga saraan fuul doonaa si fiican oo inta doonaa view-ga magaalada hadda si fiican lama wada arko. soo raac saaxiibayaal, waa galab runtii aad iyo aad u qurux badan. halka gaashada waxaa iga dambeeya view-gii dhanaay magaalada Baarey. runtii waa view aad iyo aad u qurux badan. magaalada maanta dushan ka daawanaya wax badan in badan gudaheeda waan ku jiray, laakiin xagga saraan maanta ka daawanaya waad arkaysaan muuqaalka asxaab fara badan bay ugu helaysaa. iyaguna waxa weeyaan way ka soo muuqan doonaan channelka waan iska bari doonaan. waxaan leeyahay view-ga magaalada nala daawada bal kaamirada ku yar qabo. galabta muuqaalka waxay ugu helaysaa asxaab aad iyo aad u qiimo badan oo waxa weeyaan magaaladii Baarey ugu soo dhaweeyay. halkan waxaa garabkayga taagan saaxiibkay Muscab baa taagan oo waxa weeyaan runtii magaalada ugu soo dhaweeyay. Muscab ku soo dhaw channelkayga oo markii koobaad ka soo muuqan saaxiib channelkayga. wadhigo saaxiib Maastika Channel aad baan u faraxsanahay inaan waxa weeye asxaabtaada iyo dhammaan waxa bulshooyinka aan ka soo hormuqdo. halkan waa Cadoon Baarey waxa weeye waayadanba muuqaallo qurux badan ka soo gudbinay. haddana waxa weeye waxa channelkeen nagu soo booqday magaaladeeni iyo waxa weeye mataqaanay jawiga nagula joogo saaxiibkeen Maastika Channel. dhammaan waxa weeye reer Cadoon iyo dhammaan gobolka Afdheer iyo dhammaan dhalinyarada deegaanka waxaan leeyahay YouTube-keeni waxa weeye ala soo subscribe gareeyo, like-ta iyo share-ta waxa weeye waa free. حاول يسولو صاحب كسولو عدون بري كسولو مجال كسولو أصحاب تادي. Thank you. aad baan ugu dhaw saaxiib. waxa weeyaan meel faramaan oo magaalada waa inta sidoo dulay yiraahdo oo aad iyo aad u qurux badan. waxaan leeyahay la socod wanaagsan saaxiibayaal. waxaa halkan garabkayga fadhiya mid kamid ah odayaasha magaalada xogaalna oo deegaanka ka isaga waxa weeyaan naga warrami doona magaalada taariikhdeeda, waxyaabaha caan ku tahay ama waxyaabaha magaalooyinka kale ay kaga duwan tahay iyo xilliyada ay soo martay taariikhadeedaba. abu soo dhawaado magacaaga ku bilaabaya. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وحالي إبراهيم عمر جلال هذا مقالة ومقالة قديمة ومقالة نبت قليلة عاد وجعل
waana magaalo ummadda joogta nabadgelyada aad ugu jecel waayo nabadgelyo inay jeceshaan ku sheegay waagii anoo taariikh la sheegay laakiin eryaa iyo ka baxay marka Soomaaliya iyo Itoobiya la dhigi jiray midkoodna dagaal kama dhicin Soomaaliya markay soo galeysay Itoobiya iyo qulqul bay tirin gacad loo tirtay waan baxaynaa ogaaday iyadoo xabad ka dhimay baxeen Soomaaliya marka hadana ay ka baxay ay noqotay Soomaaliya ay soo galeysay Soomaaliya hadana gacmaha loo tirtay Itoobiya soo galayna waan baxaynaa ogaada marka baari waxay nasiib ku yeelatay waliga dhibaato dadkeeda ma qaxin dhibaatana kuma dhicin marka nabadgelyadu waxa jirta meesha dadka u badan ee aqlibada u leh waxaa jira qabiil ahaan u degan u badan geed waxaa jira ay leeyahay abshir oo 270 sano diin lagu akhrisan jiray geed ma isa xalay laba abshir baa leeyahay markay dhibaatooyin wax noocaas ay arkaan bay ilaahay bay aaminaan diinteena aad u jecel yihiin geed marka diin bay ku akhristaan marka dhibaato ku imaata ama cudur imaado ama roob yaraan wax noocaas la arko yaa geedka tagaan diin bay ku akhristaan ilaahayna wuu ka aqbalaa geedka marka saga waa laba ashir bay oo baxeenoo awowiyaalka ma soo fadhi jiray annaguna sidii baan u haysanaa marka baari markii la yiraahdo waa magaalo aad nabadgelyo jecel magaalada baari waqtigii la asaasay goormo ahaa magaalada baari asaaskeedu ma dhaweyn way kala ahayd mar Talyaani iyo Itoobiya yaa mar Talyaani ma deganaan jiray marna Itoobiya deganaan jirtay mar bay ahayd marna Soomaali baa yar deganeed marka ay ahaan jirtay taariikhda way fogta baari deganaashadeeda magaalo hadda tuulo yar hadda la bilaabay magaalada baari way farabaantay magacan midnimada baari xagee uu ka yimaado magacan soo waxay magaalo walba magac feen nidaam iyo qaab hal lagu qabsaday magaalada baari horto baari magac maxay kula baxday geed baar ay lahaan jirtay baar ها واجو روح بيجر بهان جفتي علاش منه حل جري قيلي منه حل جري قيلي منه حل جري بار قيلو وبيجر اندرتود marka si diinta loo aqrinay marka علاش waajabaan ilaahay baa jabiyay marka biyihii baa carada ka bad marka biyaha magaalada ku yaala hada علاش farabadin hada علاش ku jirto علاش hada yaalo farabadin laakiin waago hore laba ceelo midna qeyli la yiraahdo midna baar qeyli la yiraahdo oo mana oo qeylo magac loo bixiyo oo mana يا واه لهان جرتي هذا إلهي بقى دينتي اللي أخرسنا هي دينتي اللي أمنتنا اللي أخرسنا هي يا لا جبتي مركب بيه فربان بقى قال لها عايش وفربانين لكن حاجة قناع السيدة واجد الآن دبعته جد الآن بعد هي سمويان هذا مارت حاجة سيكر واسك عادي كذا هذا نفسه كان أبار بحوا وكجي تراب الآن بحلا وكجيته لا في موسو ولا سوق جوري إلهي ما سيجنا كبرين رب ضام بقى الله فدا إلهي كبرين رب أنا هلا كبريننا maxad dad fara badan oo waxa weeyaan dinta feature ku daawan doona muuqaalkan dadku waxa weeyaan hadii noqotay nolosha wadankan ay joogta ama dadku waxa weeyaan dhanyarta iyo degmada baari u dhashay maxaad fariin u diraysaa halkan waxaan u dirayaa dadkan qurbo joogta magaalada baari ama aaganba ka dhashay waxaan u dirayaa waqti maanta kulba lagu jiraa waxaan u baahanahay inaad garab qabataan ilaahay yiraahdo ilaahay ma xaqiisa garab qabasho laga helaa laakiin bilaadan ahaan markaan nahay إن الجرب قبته أو maanta إحنا العاويان أيان aad ugu baahan dadka qurbo joogta ee dalka ka dhashay waxaan dhex soconaa hadda aan ku suganahay bartamaha magaalada Baarey halkan garabkayga waxa socda Muscab oo ah ninka waxa weyn magaalada ugu soo dhaweeyay saaxiib horta wastiko Baarey waarta waxa weeye waa magaalo waxa weeye iska yar xaamiya walow eeg hadda xogaa dadku ay inta badan jiifaan xilli hore ay taariikh hore bal magaalada waxyaalaha kula ku nadarta maxaa kamid ah horta wallahi magaalo walba oo tag waxyaabo gaar ah iyo waxyaabo la yaab leh way jiraan ma taqaanay hadda wixii igu la yaab ka badnaa in magaalada ku arkay wuxuu ahaa magaalo intan maray magaalo ka ceel badan ma arag dhowr ceel oo iga xawayaan la 10 ku dhawaada fara badan baan ku arkay magaalada xaafad walba oo tagto wax weeyaan ceel bay leedahay sax واسيدي هذا أوديو سيد نوشي يقول ها مقالة الواقي هر عيال بدن ملين لكن هذا عيال بدن بيجي فرام بأدو آخريو ديتال أدو آخريو ده شيء دين فربان مكو آخرني كذب وحين عارش النبتين رنتينا وأرن آدم وأنا يسون وحويان هنا حويان إلهي حق صلى الله تمرك أول بعض تيجي مركا أرتم مقالين ومقالات تاريخ ل وقت بني درتي صدق على كتار الله مقالين حدود بكتار الله الصومالية هذا شارناي صح مركا ومقالة runtii waxyaabo fara badan koobstay waxyaalahan iyaga u badan ee gabaari la dhigi karo waxa weeye waa lagu yaqaan waxa kamid ah waayo waagii ugu horeysay ee markii Soomaaliya laga soo laabtay baari waxa kamid tahay meesha koowaad ee la imaaday markii loo soo qaaday xaga ka baxay ee dhacday baari baa la imaaday baari baa kadib gada degmooyin kale gobolka dheer ceel ka waxaan ka ahayn degmooyin kale ee iyaga gobolka dheer baari dadka tagay hayeen salahan iyaga hargeyle kooxle godgod charity oo ayakuna qaala marka baari waxyaalaha u badan ee aan ku tax kamid ah xadaarad iyo waxa weeyo inay dad badan oo kala duwan ay soo mareen
waag saaxiibayaal hadda waxaan soo gaarnay buurta ugu caansan degmada Baarey waxa weeyaan buurtan magaceeda waxa la dhahaa Gorobaale ayaa la dhahaa waana buur taariikh leh oo aad iyo aad u caan ah buurtan haddii aan taariikhdeeda wax idin ka sheego sida ay noo sheegeen dadka deegaanka waxay ahaan jirtay halkii degmadan laga maamuli jiray waqtiyadii hore dargiga waxa weeyaan waa meesha kaliya ee magaalada laga maamuli jiray sababtoo ahna magaalada xaggan dusha dhan ee magaalada ayaad ka arkaysaa marka halkan joogto magaalada gees ilaa gees waxa soo galaya ayaad arkaysaa oo ma taqaanaay dhaqdhaqaaq dhan ee magaalada ayaa lagala socon jiray waxayna ahayd xaruntii ugu weyneed ee dargiga ma taqaanaay buur taariikh badan leh halkan sida hadda gaashada ka arkaysaanba waxa laga dhisayaa waxa weeyaan dhaamkii baa laga dhisayaa magaalada ama taqaanaay waqtiyadii hore waxaan jirtay waqti gumeystii dargigii iyo ay ka maamuli jireen laakiin iminka waxa weeyaan ma taqaanaay meel bulshada faa'iido leh oo waxa saaran baa anteenka dhanaa waxa weeyaan khadka keenay magaalada sidoo kale waxa dusheeda saaran dhaamkii dhanaa waxa weeyaan magaalada haankii biyaha u qaybinay magaalada ayaa saaran oo meel hadda wax isku bedeshay waxa weeyaan aad iyo aad looga faa'iideysto oo arkaysan shaqooyin fara badan ka socda halkan ku soo dhacaynaa hadda arkaysan waxa weeyaan waa guriyihii ay deganaan jireen dargigii waqtigii ay maamuli jireen waxa weeyaan magaaladani Baarey ma taqaanaay sida arkaysaanba dhismahani waxa weeyaan waa guriyihii ay deganaan jireen meeshan waxaan halkan ku aragnay fartan oo ku qoran halkan fartan waa far xabash weeyaan oo Ethiopian weeyaan marka goobtani waxay ku cadeynaysaa inay tahay goob ma taqaanaay waqtiyadii waxa weeyaan meeshan ka talin jireen ciidamadii dargiga inay tahay meelihii waxa weeyaan ay deganaayeen guryahoodii marka halkan aan taagana hadda sida kasaanba way xawaalmeen hadda marka inta wax ka soo hadhay oo ma taqaanaay guriyihii ay gari jireen bay ahaayeen xagan ilaa ba ku yaala hadda sida kasaanba oo waa albaabkii laga soo galiyay xaganna waa mid kamid ah albaabada meeshan laga soo galiyay oo marka ma taqaanaay meeshan qolal bay ahaayeen oo waxa weeyaan dhagxaan adag ba laga sameeyay hadda laakiin sida arkaysan waxa weeyaan baraag ba laga dhigay meeshii oo waxa isticmaala hadda dadka meeshan jooga ayaa ka dhigtay baraag biyaha ku kaydsadaan waxaan kuwan ba hadda ka soo hadhay meeshan guriyihii ku yaalay marka buurtan waxay ku cadeynaysaa inay buur taariikh fara badan ku leedahay degmadani waxaan ku sugannahay buurta Gorobaale ee degmada Baarey buurtan waa buur taariikhi ah buurtan oo buur waxyaabo badan oo waxa weey xuso fara badan ku duwan yihiin hadaan sharaxo buurtan waxay leedahay taariikh badan oo ay kamid tahay xilliyadii dargii waxa jiray buurtan magaalada istiraatiiji bay ahayd sidoo kale buurtan waxa ka dhisan haankii weynaa ee degmada Baarey gabagabo marayo sidoo kale anteenkii weynaa ee degmada ka dhisan marka buurtan waxa weey waa buur degmada Baarey caanka oo lagu garto oo lagu magac daray buurta Gorobaale buurtan waa buur xilligii dargiga talisadii Itoobiya ay istiraatiiji u ahayd oo deganaan jireen ciidamadeeda